tirada Soomaalida soo galootiga ah ee wadankan South Africa ayaa sii kordhaysay bilihii ugu dambeeyay kadib markii ay ka soo carareen dagaalada aan dhamaadka lahayn ee ka soconaya gudaha Soomaaliya. Dadkan ayaa galinkii hore ee saaki soo gaaray magaalada Cape Town ee wadanka Koonfur Afrika oo ahayd halkii ay u soo tahriibeen iyagoo halkaasi ay ku soo dhaweeyeen qaar ka tirsan eheladooda. maraan wax ka weydiiyay qaar ka mid ah tahriibayaashaasi ayaa ii sheegay inay wadada ku soo jireen muddo ka badan 2 bilood iyadoo haddana dadkii ay isla socdeen lagu qabtay wadanka Tanzania maadaama ay ahaayeen dad tahriibayaal ah oo aan wax sharci wadanin. doontii naga dambeysay waxay ku dhaceen wiilal nala socday 20 qofood ay badda uga daadisay doontu. waxaa dhacday in hadii la tago uga daadisay 2 nin ay ku dhinteen sida noo sheegeen wiilasha oo Mozambique ku taaleen ugu yimideen kuwa kale noqon Tanzania qabatay qonna alla ka soo badbaadiyay meesha ugu yimideen. Tooraale waxaan kula talinayaa in aysan taqiib soo aadin hadii haddana waxa meesha taalo Soomaaliya aniga dhibaato iga keentay dadka walaalahan dhibaatadii hayso. marka meel lagu noolaado Soomaaliya iga ma muuqato marka inay isku joogaan aan kula talin lahay xal wadankeena xalna mar astaga marka waxaan leeyahay meesha idin fiican kulay inka taqaaniin laakiin aan waxaan ku dardaarmaa inaan wadankiina joogtaan maadaama dib badan ka sokay meesha leeyahay hadan dib kale sitay wadan shisheeye meeshan ila waradii lagu kalsoonaan karo ayaa ii sheegay in xabsiyada waaweyn ee ku yaalo wadamada Zambia iyo Mozambique lagu xirxiray maxbiis aad u badan oo dhalashadoodu tahay Soomaali iyo waliba Ethiopian oo aan tiradooda la cayimin. Cabdikariim Mursal Farax, Universal TV, Cape Town.